halbowliya dhaxalgal iyo lafdhabar weeyaan wadadu dhulkeennay horumar iyo u tahay dheef iyo macaash jeeroon dhabarradii masli iyo dhoweeye higlale gashan dhaqaalaha wowsidna go'aanka dhaca ahaa inaynu dhammaystirree kumee dhallinyaroy kumee wadadan horta muddo badan bay socotay 4 bilood iyo waxay taagan tahay maanta halka ugu dambaysan maslihii ilaa 10 kilomitir baa inoo hadhay intii aynu gobolka Jarar dhagax buur aynu xad kala hayn xaadistuna waxay maraysaa 8 kilomitir oo kala barkii qiyaastii aan noqonaysa intaan labada cagaf kala marayaan waxaan ka warqabnaa in adduunka ka dhacaan cudurro dadkii waxayna soo tori jiray maanta ayagii in xala taray baahan yihiin maxaabiis fish guryahoodii ku noqdeen waan kala xishoonaa in maanta wax ka codsano haddana duruuf jirta aawadeed maadaama shaqadii socoto dadka gudaha noo boorin waxa leeyahay war arigiina iyo sakadiina iyo sadaqadiina ku dara in badan ku dibadda ku tiirsanayne maanta mala ayaga u baahan loo gurmado haddana kullu way adaba naga damqasho badan waxa leenahay bal wixii ka soo go'a wadadii way u baahan tahay waxa jirta wadadan waxay soo kordhisay wacdi aan markii hore joogin oo baaca mushtarka ganacsiga iyo nolosha bilaadmiga isku dhex qaado oo kala xidhnayd bay isu furtay baligubadley la dhagax bur ilaahay mahadii waxa taa keenay wadada oo noqotay wadadii baaca mushtarka ugu dhaweyd ee isku xidhaysay baligubadley iyo dhagax bur meelo ka badan oo macnaha wadankaana dhagax bur bay uga sii kala kooshta sidaasay ku noqotay nimca ilaahay keenay waxa keenay nimcada ilaahay keenay wuxuu ku ilaahamiyay dhalinyarada Gaawo Foundation iyo qurba joogta ayuu ilaahay ku ilaahamiyay anigu cabdi askar baan hol lacagtiina waan bixiyay adigiina waan bixiyay neefadaanu igu harayna waan la daba taagnaanayaa wadadaas ilaa ay noqoto taamurki la dhigo ilaahay baa mahad leh qurba joogtayadii iyo qulqul joogtayadii isku aragtida ka dhigay ee saakayna hamigaal lagu naaloonayo hamigeeda la yimid iyo waxqabadkeeda muujiyay mid kale waxaan ugu sii mahadnaqaynaa ururkan Gaawo Foundation oo ilaa maanta wadadan marka laga hadlayo wixii galay hawshu ay ku kaliyowday wixii kale lagu soo dareebo wax yar oo kale fikir uu yahay aad baan ugu mahadnaqaynaa waana nuu ducaynaynaa dhalinyarada ilaahay garansiiyay wixii ay shaqaysteen inay dalkoodii wax ku celiyaan oo wax ka qabtaan aad baan ilaahay uga mahadnaqaynaa waana nuugu ducaynaynaa ilaahay wixii ay meesha adduunka ka soo saaraan wax roon inuu ilaahay ugu bedelo ayaanu ilaahay uga baryanaa waxa qabalada laga soo ururiyay iyo waxa gaawana lagu soo dhiibay uma wadada galay cidaan anagu Gaawo Foundation haynoon aragnayna ma jirto herban toon foosashada ka aragnay her foundation qolada toon foosashada ka aragnay iyaga in la xaqira maaha cidii kale ku soo darsatana sidii ma u sheegin anagu iyagana ilaahay ka khayrkeeda siiyo in afkadan la mahadnaqina ilaahay loo mahadnaqay waxaan idin sheegaynaa wadadii halka ay laaqeyr ka mareysay ee quruxda badneed ee ka muuqata baanu taaganay odayaasha laaqeyrtaanunay cali aw xasan dhuux baan ahay meel loogama kacna anagu wixii noogu yimaadana inaan run ka sheegno oo naan been ka sheegin baa noo go'aana ninka xiiray iyo koolhoolaya mid walba waxaan ku aragnaa sheegayna wadada inta ayna dhex toolay 4 bilood ee la marayay kulba cagaf naga tamaysay ee kulba taayir iyo tayib naga jabayay cidda gargaaraysa ee xaqiiqo lambar aanu qorna noo keentay waa Gaawo Foundation cid kale oo taariikhdu way qormaysaa waxaanu ka qorno oo muuqda noola timi ma jirto hadalkaasi waa dhab waxaan walaalayaal kula talinaynaa iyo idiin muuqanin shilinka maanta bixinaysaana wax ka weyn baynu maanta gashanay waynu sadaqadaysanay waa sadaqa jaariya wada hadal bahaadkaas ka haray dad badanna way ku farxeen wadadeena anigu waxaan ahay aadan Habib Culuw oo ah hawlwadeenka cagafta inta badan la shaqeeya ee wadada markii hore geedogoyntu ay jirtay waa loo shaqeynay dhibaatadeeduna geedogoyntii ahayd kadibna waa ka soo tan xaaritaanka Greater Talimanka aan la soo bariyahan dambe dhibta hortaagan ee lagu soo noqnoqotay waxay tahay laba qaab bay ahayd marka hore busti baan haysatay jiilaalka iyo boorka oo hakad badan lagu samaysay kadibna
roob ayaa inta badan imaka aan naga qaadin marka 2 saac shaqeyna yoomka aba saacad iyo aba 3 saacadood aan shaqeynaba roob baa soo horaya sidaa awgeed bay horta ay u gaabinaysaa waxaanay maraysaa ilaa 8 kilomitir bay Balgubadley hawd u dhaaftay ilaa 8 kilomitir bay u dhaaftay hawd inta xaaritaanka la xaaray maalinta ay kawraxda cadeedu soo baxdabana markaas aan shaqada sii bilownaan islaano 1 kilomitir barkeed ma xaari ka saataan ilaa waan si dhaqaajina annagoo de roobkaas saasa marka xanibaada noogu wacan hawsheeduna si fiican baa u socotaa wadadana waa aragtaa baan sawirkeeda annaguna markaanu nahay miyiga aanba nahay xarunta laanqayrta waxaanu la garab taagannahay hiiliyahooba inaanu maalkayga wax kaga bixinno horena wax waa ugaga bixinnay iminkana diyaar baanu nahay insha allah bilaahi kariim waxaanu leenahay oo kaloo raacsan waxaynu joognaa bilihii rabadaan waa bilihii naxariista lahaa waa bilihii sadaqadu jaariya ahayd waa bilihii sakada la bixin jiray wadarteenba inagoo wadaa wixii wax qabtaaba gaawo foundation waxaynu isugu iman karnaa inaynu wadadu waa 2 fays baa dhammaaday faysaskii dambena way hadheen faysaskaa dambe siday noogu dhammaan lahaayeen inagoo mid ah inaynu ka wada tashanno waxaanu dhammaan qurba joog iyo qolqol joog iyo qari joog bayda ku hambaliyaynaanu ka dardaaraynaa waxa la yiraahdo iska hor imaad iyo isku xumayn taasi hadday timaado waxba inoo qabsoomi maayaan laakiin markay wadadu inoo qabsoonto kii u xiirayayna waynu arki kii holhoolayna markaas u iman